qodobo ayaa laga soo saaray askarta ilaalada u ah mas'uuliyiinta ee ka howlgasha magaalada Muqdisho kadib shir looga hadlay amniga oo Muqdisho lagu qabtay. Yoonis Duraan Cali ayaa eegaya warbixintan. shir looga hadlayay amniga caasimadda ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiisha booliska Soomaaliya, xubno ka kala socday gobolka Banaadir iyo wasaaradda amniga. Kulanka ayaa intuu socday waxaa looga hadlay sidii amniga caasimadda waxa looga qaban lahaa shalayna ka dhaceen qarax ismiidaamin ah iyo dagaal xigay ay mas'uuliyadiisa sheegteen shabaab. guddiga amniga caasimadda ayaa sheegay in aan la arki karin istaaf wata dariiska ciidanka xoogga dalka ee dhex maraya Muqdisho. Sidoo kale guddiga ayaa ugu baaqay istaafka mas'uuliyiinta dowladda inay si wanaagsan ula dhaqmaan ciidamada amniga ee istaagsan isgoysyada Muqdisho. shirka kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow, wuxuuna warbaahinta la wadaagay waxyaabihii ka soo baxay shirkii amniga xalay. waxaan kaloo iyadana aad u codsanaynaa in mas'uuliyiinta istaafkooda ee magaaladan maraya in ay mamnuuc tahay in dharkan ciidanka xoogga dalka inay ku dhex maraan magaalada. ciddii ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee magaalada shaqo ama ku maraysana goobaha ciidanka booliisku ay taagan yihiin inay si asluubi ku jirto, nidaam ku jiro ay ula hadlaan, isu sheegaan. haddii kale waad aragteen kooxaha hargixisadu dharkaas tuutaha ayay soo wada qaateen oo kusoo dhex dhuuntaan. marka si aan uga feejignaano waxaan codsanaynaa mas-uuliyiinta istaafkooda inay mas-uul ka noqdaan. waxaan ognahay istaafyada qaarkood oo in ay xabado marmarka qaarkood furaan maalayacni ah, isla xisaabtan dhanba baa jira. qaarkoodna waxaan u gudbinay maxkamadda ciidanka qalabka sida. marka qof walba mas-uula ha ogaado asaa mas-uulka ah istaafkiisa. iyadana waxaan rabnaa arrintaas in gudoomiye Yariisow ayaa dhanka kale wuxuu ugu baaqay wadayaasha gaadiidka biyalka iyo mootobajaajta inay isdiiwaan geliyaan. gudoomiyaha oo sii hadlay ayaa wuxuu sheegay ciddii aan isdiiwaan gelin in loo arkayo inay caqabad ku tahay amniga caasimadda. midda kale oon rabno inaan digniin u jeedino waxay tahay ma leedahay bajaaj, ma leedahay gaadiid. haddii uusan gaadiidkaaga diiwaan gashanayn, haddii aad gaadiidkaaga diiwaan gashatay laakiin aad qofka iibisay magacaaga weli ku qoran yahay, mas-uuliyadda adaa qaaday. adaa mas-uul ka ah gaadiidkaas iyo wixii dhib ah uu geysto. si haddaba taas looga hortago, bajaajlaydu iyo baabuurta kaleba waxaan leenahay isdiiwaangeliya. ma leedahay bajaajka, isdiiwaangeli. haddaadan isdiiwaangelin, muwaadin dhab ah Soomaali aadan noqon, canshuurta lagugu leeyahay aadan bixin, hadda waxay noqonaya qof u adeegaya cadow. ummadda Soomaaliyeed waxay leedahay hal cadow, halkaas cadowna wuxuu yahay kooxaha argixisada al-shabaab. ayagana inaan hal meel ugu soo wada jeesano oo aan la dagaalno ayuu qorshaheenu yahay. hadalkan ka soo yiri guddiga amniga caasimadda ayaa imaanaya iyadoo Muqdisho ay ka dhaceen maalintii shalay ahayd qarax gaari laga soo buuxiyay iyo dagaal u dhaxeeyay koox hubeysan iyo ciidamada amniga, waxaana labada dhacdo wax ku noqday tiro dad iskugu jira shacab iyo ciidan. xildhibaanada Hirshabeelle ayaa ku kala qaybsan khilaaf u dhaxeeya guddoonka baarlamaanka iyo furitaanka shirarka ee maamulkaasi. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan Jowhar inooga soo diray. ayadoo muran xooggan uu ku dhaxeeyay guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa inta badan waxa xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle yihiin kuwa ku kala qaybsan aragtidooda khilaafka u dhaxeeya guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. xildhibaan Nuur Xaanshi Warsame oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ku sugan magaalada Jowhar ayaan wax ka weydiiyay khilaafka jira oo u dhaxeeya guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ayaa waxa uu tilmaamay in ay kulan ay yeesheen dhowaan kuna yeesheen magaalada Jowhar xildhibaanada ku sugan iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo gudoomiye ku-xigeenka oo dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ayaa waxa uu xildhibaan Nuur Xaanshi in uu furan yahay kulankii baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayna dhowaan kulamadii caadiga ay yeelan doonaan mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. anigu waa kulanay xildhibaanada Jowhar joog intoodii badneed arrinkaas anagoo rabna bal inaan wax ka ogaano. waatii uu hadlay waatuu maasii soo diray gudoomiyaha baarlamaanka uu baarlamaanku xiran yahay anaana awoodeeda iskale waatay khilaaftay gudoomiyaha ku-xigeenka labaad. anagoo arrintaas rabna inaan bal wax ka jira يعني أن أجانو يابن أو يعني قاب كبرلمان كو هوش صوت الله يابن أو قفل بقوا في الجالسية اللي يابيه هاي أو والوقت على ينصبحني وحنون من أفريقيا الحدبان أنا هن قدومي كعين كي كوباد أوي عبد الحسين جدو بدأ عفماضو جرا يقبل لي قدومي كعين لا دور صوب بقني وأسوار يسني وحي نوشي جن إن هوها
يعني إن البرلمان كو شقين دون هدي الله يدمو ما سيفي درين يعني اللي ليها البرلمان كو صدره ما أنت 4 صوص عطوبيش توكل كو هدي هدي الله لكن أمور وقت جدي فلنتاه واي وضع حلبان البرلمان كو إن لا حساب تمام قدوم كود إن لا حساب تمام إن كدول استاجان يعني وحي الله إدمضي إن كدول استاجان أرنك صواص عض هدي الله يدمو waxaana soo bixi doona yani waxyaalo ay dadweynuhu ku qanacaan hadaalid warkan ka soo yeeray xildhibaan Nuur Xaanshi warsame oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa uu imaanaya xilli hadooyinkii la soo dhaafay uu jiray khilaaf u dhaxeeya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Canab Axmed Ciise gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Cismaan Bare Maxamed oo kol hore oo sheegay inuu xiran yahay kalfadhigii baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle kaasoo ay gudoomiye ku-xigeenka labaad ay ka soo horjeesatay بشير علي داهر راديو كلمية جوهر saamaynta qaraxyadii dhawaan lagu qabtay magaalada Marka ayaa laga dareemayaa gudaha magaaladaas iyadoo ciidamada ammaanka ay wadaan howlgallo ay ku xaqiijinayaan ammaanka magaalada Marka Axmed Abuukar Sabriye ayaa warkan goordhaweed inoo soo diray ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Marka ayaa xoojiyay baaritaanka ay ku xaqiijinayaan ammaanka magaaladaasi kadib markii saacadihii la soo dhaafay ay gacanta ku dhigeen rag lagu sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab iyo sidoo kale waxyaabaha qarxa guud ahaan xaafadaha magaalada Marka ayaa loogu arkayaa ciidamada dawladda si aan horey loogu baran waxaana mid ay u baarayaan goobaha ganacsiga iyo guryaha iyadoona dad deegaanka ah ay xaqiijiyeen in ay ciidanku ku wargelinayaan shacabku in aysan dhibaato wadan kaliya ay amniga xaqiijinayaan taliyaha booliska magaalada Marka oo KNN la hadlay ayaa sheegay in laamaha ammaanka qaybahooda kala duwan iyo ka maamul ahaanba ay ka go'an tahay in ay ka hortagaan khatar walba oo ay al-shabaab ku qalqalgelin karaan amniga magaalada waxa uu sheegay in ay wada shaqayn wanaagsan ka dhaxayso shacabka iyo maamulka taasina ay laamaha amniga marar badan ka caabisay sida uu sheegay inay ka hortagaan falal lidi ku ah amniga oo ay shabaab ka fulin lahayd magaalada Marka ciidamada dawladda ee ku sugan magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa dhawaan gacanta ku soo dhigay rag ay ku sheegeen in ay al-shabaab ka tirsan yihiin iyo waxyaabaha qarxa oo ay ku howlanaayeen sameeyntooda kadib howlgallo qorsheysan oo ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaaladaasi Axmed Abuukar Sabriye idaacadda Kulmiye Afgooye baarlamaanka Puntland ayaa mamnuucay badeecadaha qaar ee deegaanada Somaliland looga keeno Umar Maxamed Soomane ayaa warkan inoo faahfaahinaya mudanayaasha golaha wakiilada maamulka Puntland oo fadhigoodii 44aad uga soconaya xaruntooda magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa dood kulul ka yeeshay badeecadaha ka yimaada dhanka deegaanada Somaliland ee ka soo degaadekada magaalada Berbera mudanayaasha baarlamaanka ayaa sheegay in talaabada badeecooyinka laga keeno deegaanada Somaliland ee la soo geliyo dhanka deegaanada Puntland ay qayb ka tahay curyaamin lagu sameynayo dekada magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland xildhibaanadan ayaa sheegay in la joojiyo gabi ahaanba oo xubnaha golaha wasiirada ay joojiyaan badeecooyinka ka imaanaya deegaanada Somaliland taasoo ay sheegeen inay caqabad ku tahay ganacsiga Puntland waxaana ay shaaca ka qaadeen in xilligan lagu kordhiyo canshuurta laga qaado badeecooyinka qutul daruuriga ee ka yimaada deegaanadaasi waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland oo ka hadlayay badeecooyinka laga soo dejiyo dekada magaalada Berbera ee la soo gaarsiiyo dhanka deegaanada maamulka Puntland waxaana koow ka ahay hoos u dhac weyn oo ku yimi dhinaca dekada Boosaaso haddii maanta markaa la aqbalo in dry port kale laga sameeyo dhinaca Tukaraq taasi waxa ay keenaysaa awalba dekadii oo dhaqaale la'aan la dhitinaysay inay albaabada u sii xirto marka anigu waxa aanu qabnaa ka guddi dhaqaale ahaan in haba yaraatee nooc doonaba ha noqdo badeecadaha ka imanaya dhinaca gobolada waqooyi intay doonaanba hal ekaadaan wixii wax soo saarka Puntland wuxuu dhimayaa horta totally aan xataa cashuur laga qadin la joojiyo ama la gubo marka waxa weeye tuurtaman iska dhaafi waa wax marna maskaxda aan gali karin markii inta taraasido ku soo maro waxa weeye dhulka Somaliland baale weey haddana waxaan ka doodaynay Soomaaliya loo xoreeyaa haddaynagu baarlamaanka haddaynu maanta waxa ansixino dhulkiina waa ansixinay ogaada transitka dekada Berbera wuxuu keenayaa in dawladda Soomaaliland aan u aqoonsano dawlad ahaan oo transit noo soo maro waa qodobka labaad hadayocada lagu cashuuray hadii la yiraahdo sool waxay ka baxday fursada oo kuma jirto waa Soomaaliland midda labaad
DB Wall waa nagu badato horta sideedaba arrintan DB Wall in anigu waxaan qabaa waaba soo socotaaba hadda laga hadli doonaa in horta bal cidda ay khusayso laftigeeda la ogaado inay xidho siyaasiyan dekadda Cumaan iyadoo annagana nagu xumaynaysa si ay berbera u noqoto meel wax ka degaan iyadoo dagaal kaleyba wadata gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhooba Daareen ayaa dooda xildhibaanada kadib waxa uu qaaday cod gacantaaga oo uu sheegay in 5% la saaro badeecooyinka ka yimaada deegaanada Somaliland ee laga soo dejiyo dekada magaalada Berbera isla markaana la keeno deegaanada maamulka Puntland in la saaro cashuur 5% yaa qaba waxyaabaha ka yimaada Somaliland noocyadiiba waxyaabaha yar ka yimaada inay iman karaan oo ganacsi xor yihiin laakiin 5% la cashuuro 5% la cashuuro 5% noocyadiin biyaha hilibka rawaska waxa soo dhammaan wixii ka yimaado badeecadoodaaba dhammaantood wixii ka yimaado 36 madan ayaa u codeeyay yaa diiday mare yaa ka aamusay waa mudan doodan ayaa qayb ka noqonaysa dood kulul oo maalmihii ugu dambeeyay xildhibaanada baarlamaanka maamulka Puntland ay ka yeelanayeen arrimaha ganacsiga ka dhaxeeya Puntland iyo Somaliland maadaama dhanka siyaasadda isku khilaafsan yihiin walow gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ay qayb ka ahayd doodihii ay xildhibaanada baarlamaanku ay ka yeelanayeen xaaladaha siyaasadeed ee dhanka deegaanada Somaliland iyo maamulka Puntland dhinaca Somaliland waxaa la soo warinayaa in ay ciidan kala dhex dhigtay beelihii ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag xilli ay korortay tirada dhimashada ee dagaalkaasi Ilyas Cabdi Cali ayaa faafahinaya ciidamada militariga Somaliland ayaa la geeyay deegaanka Duur Caraale oo ka tirsan degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag halkaas oo ay ku dagaalamayaan beelo halkaas wada degan ilaa iyo 35 qof ayaa la sheegayaa dhimashada iyo dhaawaca deegaanadaasi ka dhashay ee khasaaraha dagaaladaasi ay geysteen ciidamada militariga ayaa ku kala dhex jira hadda dadka maleeshiya beereedka ku dagaalamaya halkaasi taliyaasha ciidamada militariga Somaliland waxa ay sheegeen in ay gacan bir ku qabanayaan dadka ku dagaalamaya halkaasi warar hordhaca ayaa sheegay in madaxweynaha Somaliland uu la shiray taliyaasha ciidamada militariga kaasi oo ku wargaliya ama ku amray in la soo qabto cid kasta oo dagaal gacanta kula jirta ama hub haysata dagaalada halkaasi ku soo noqnoqday ayaa waxa ku dhintay ku dhawaad 300 oo qof oo deegaanadaasi ah waxaana beelaha halkaasi wada degan sanadkii hore loo sameeyay inay ku heshiiyaan deganaanshaha deegaanadaasi iyadoo tuulooyin ay isku leen jireen hore loo burburiyay dagaalada deegaanadan ka socda Ceelaf Weyn ayaa soo noqnoqday muddo 4 sano oo u dambeeyayba Ilyas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa halkaad warkaasi duhurnimo kala socotaana dhageystayaal waa Radio Kulmiye xafiiska looga taliya dalka Ingiriiska ayaa warmurtiyeed laga soo saaray lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ay kalsooni buuxa ku qabtay safiirka u fadhiya Mareykanka inkastoo madaxweynaha dalkaasi Donald J. Trump uu sheegay inuusan la shaqayn doonin Sir Kim Droich madaxweynaha Mareykanka ayaa ka jawaabay email banaanka u soo baxay oo muujinaya aragtida safiirka uu ka qabo maamulka Trump isagoo ku tilmaamay mid qalalaasa ka samaysan isla markaana ay wax badan qaldan yihiin Trump oo hadalladaasi xanafta leh ka xanaaqay ayaa markaasi dalbaday in la bedelo safiirka May ayaa dhankeeda muujisay in marka ay ku kalsoon tahay safiirka Ingiriiska u jooga halkaasi afeen u hadlay Britain ayaa sheegay in xiriirka labada dal uu yahay mid wanaagsan wararka la soo gudbiyayna ay yihiin kuwa si gaar ah looga soo dhaxushay waxyaabo badan Faaduma xeerbeegtada dalka Turkigana waxa ay amartay in la soo xiro ilaa iyo 200 oo ruux oo kamid ah ciidamada militariga dalkaasi iyo dhowr ka tirsan shaqaalaha bulshada rayidka ah kuwaasi oo lala xiriirinayo afgambigii fashilme ee dalkaasi ka dhacay 3 sano ka hor wakaalada wararka u faafisa dalka Turkiga ee Anadolu ayaa talaadada maanta ah warisay in xeerbeegtada fadhigoodu yahay Istanbul ay warqad xiritaan ah u jareen ilaa iyo 176 xubnood oo kamid ah ciidamada xooga shakhsiyaadka la amray in la soo xiro waxa kamid ah korneelo shanduq magaalo aan iraahday 7 kabtan iyo 100 kamid ah saraakiil xigeeno Ankara ayaa wakaalada
ankara ayaa wadaadka fadhigiisu yahay dalka Mareykanka ee Fadxullah Gulen ku eedeysay in uu ahaa maskaxdii ka dambeysay afgembigii fashilmay ee Turkiga ka dhacay bishii Julaay ee sanadkii 2016. inkastoo Mr. Gulen uu dafiray in wax lug ah uu ku lahaa afgembigaasi, haddana waxaa ku dhintay dad gaaraya 300 oo ruux. ku dhawaad 3 sano oo laga joogo markii uu fashilmay afgembigaasi, 10,000 oo ruux ayaa xabsiyada loo dhigay in ay ku lug lahaayeen afgembigaasi, iyadoona sidoo kale saraakiil sarsare ay shaqadoodu ku waayeen.